inala joogta agaasimayaasha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib ilaahay oo mahad iskale subxaanahu wa tacaala nagu soo simay kulankan annagoo nabad ah. waxaan joognaa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan, waxaana ku jirnaa marxalad ka mida maraaxisha ugu quruxda badan ee magaalada tan ay leedahay. dhowr bilood oo xasilooni ah oo laga nastay aafadii iyo dhibaatadii dilka iyo qaraxa iyo dhiigga qubanaya, oo waxa ilaahay looga mahadiyay subxaanahu wa tacaala. ilaahay waxa uu leeyahay la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid. ilaahay baan ku mahadinaynaa, ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ku shukrinaynaa, ziyaadana weydiisanaynaa. allah kadibna ciidamadeenna geesiyaasha ah ee ammaanka sugaya ee dhaxanta iyo milicda u taagan in amnigaas aynu hadda maanta ka mahad sheeganayna la helo baan u celinaynaa. kadibna mujtamaca soomaaliyeed ee gacanta ku siinaya in uusan shar dhex marin si qolo kaleo iyaga ka tirsan shar loogu geysto. intaa kadib walaalayaal, dardaarankeena ugu horeeya kan ugu dambeeyaba waa alla ka cabsi. dardaarankaasoo ah kii ilaahay subxaanahu wa tacaala cid walba uu u soo jeediyey ummadihii naga horreeyey iyo innaga muslin iyo gaal dad oo idil nuuca ay yihiin. walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. waxaanu dardaaran ku siinay kuwii kitaabka la siiyey idinka horreeyey iyo idinkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhowrsada, soodimihiisa ilaaliya, xuduuddiisa yaana laga gudbin, wixii uu ku farayaan lagaa waayin, wixii uu kaa reebanayaan lagu arag. intaa weyay ku sheegaan culimmadu inay tahay macnaha alla ka cabsiga ama ka dhowrsashada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kaxishoodka ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka kaxishoodkaas ilaahay waa inuu naga bixiyaa oo noo diidaa dhaqanno fara badan oo dadka ay ka maqan tahay fariinta noocaas ah laga yaabo inuu agtooda caadi ka yahay. dhaqannada waxaa ka mid ah dhaqanka la yidhahda beenta, hadal aan jirin oo qofki inuu faafiyo, hadal aan jirin oo ka dhigan yacni xabad kibriid ah oo duur xushay oo daldhan gubtay ka dhigan, inuusan qofku aanu faafinin. oo kelmaddu waxay fasaadisaa in la mid ah inta ay fasahaadiso seefta, intay fasahaadiso xabadda, intay fasahaadiso. allana waa ka digay subxaanahu wa tacaala akhbaarta aanan sugnayn iyo faafinteeda iyo gudbinteeda. bale waxaa lagu sheegay inuusan ilaahay hanuuninin qofka beenta ku shaqaysta. ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuun ma siiyo, oo hanuunkaasoo caam adde oo hadda meel baad ka baxaysaa waxaad rabtaa inaad meel gaadho. waxaad jeceshahay inaad ugu gaadhi dariiqa ugu gaaban iyo sida ugu sahlan, kharashka ugu yar, wakhtiga ugu dhow. haddii marka aad beenaalo tahay, dariiqa lagugu dheeraynayaa, caqabaad baa dhexda lagu gelinayaa, imtixaanaad aadan mari lahayn baa lagu marinayaa. waxaasoo idinla waxaa laga yaabaa inay yihiin hanuun la'aan, amaba se meeshii aad maseegaysaa, munaasabadaad u socotay ayaad gaari waayeysaa, dantii aad ka lahayd baad xaqiijin waayeysaa. hanuunku marka keliya ma aha xaqa in lagu soo leexdo, baadilkana laga leexdo, laakiin hanuunku meel walbuu galaa. waayo qur-aanka waxaa lagu sheegay inuu ku hanuuniyo dadka mid walba oo toosan tan ugu sii toosan. waxaasuu marka qofku u waayaya. taasi waa midda nabiga la weydiiyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi. waxaa la yidhi bal ka warran baa la yidhi qofka mu'minka ah ma dhici kartaa inuu khamro cabo? waa dhacday, waa dembi dhaca. inuu xaaraan kale ku dhaco oo maxaan ku rahdaa maaragtay shahwadu ay keenayso, waa ay dhacdaa. oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg inuu xoolo boobo iyo inuu xaaraan kala gala iyo wax la mid ah. been ma sheegaaba yaa la yidhi. markaasuu yidhi nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi, maya, mu'minku been ma sheego. waa qofkii mu'minka ahaa ee midka keliya ahaa ee aanan makarafoonka haysan, saamaynta aanan lahayn, warku uu sheegay meel fog aanu gaaraynin baa waxaa loo diiday inuu noqdo qofkaasu qof been sheega ah, qof been qora ah, qof been tabiye ah. qofka kale ee awoodda haysta waxa uu awoodda u adeegsado ama ku isticmaalo hadba inta ay gaadho in la mida ayaa waxa uga soo noqonayo inuu iimaankiisa maqan yahay iyo inuu jurmigiisa iyo dembigiisa u gaarayo. ilaahina waxa uu yidhi subxaanahu wa tacaala, innamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah. beenta waxaa abuurta dadka aanan rumaysnayn allah aayaadkiisa subxaanahu wa tacaala.
aayaadkaas labay u qaybsamaana waa kuwa kowniga iyo kuwa sharciga ee kitaabka ku yaalla nala hadlaya labada midna qofkaysan waxba ugu fadhiyin ayay ka suurtoodaa inuu been dhoodhoobo buu rabbul ciza quraanka uu ku leeyahay waxa lagu gabagabeeyay wa ulaa'ika humul kaadibuun kuwaasuna beenaalayaasha dhabta iyaga weeye qofku markuu noocaas oo kala noqdo maxaa ku dhacaya marka waxa ku dhacaya sida xadiidka uu fasirayay nabiga sallallahu wa sallam alayhi wuxuu yiri la yazaalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba adoonku ka zuuli maayo inuu been sheegayo oo uu beenta waliba ku dadaalaya faafinteeda jeer looga qoro alla agtiisa hebel waa beenaale ama heblaayo waa beenalay halka marka laga qoro qofku inuu beenaale yahay waxa dhacaya astaantii iimaanka dhacaysa astaantii iimaanka ayaa dhacaysa marka waxay taa ka mid tahay xaqiiqada akhbaarta in la isdul taago mihnada dhabta ah oo ay leedahay warfaafinta waa mid koowaad midda labaad in laga fogaado beenta waa mid ka mid ah akhlaaqaha ugu waaweyn ee qofka muslimka uu ku tilmaamay midda saddexaad waa mid ka mid ah rasaa'isha qofka mu'minka ah uu gudbinayo maxaa yeelay warkii marka loo tago xaqiiqadiisi la helo misdaaqiya ka soo noqonayso laakiin markii xaqiiqadiisi waxaan ahayn loogu tago ama dhibaato ay ka dhalato ceeb ka dhalanaysa ayadana waa maxay wax kale oo saameyn ku yeelanayo qofkan mas'uulka ee mikrofoonka loo dhiibay waxa marka ay farayaan dhammaan islaamnimada akhlaaqiyaadka qiyamka dadnimada damiirka kulli waxa soo dhan macno loo dabadabaysto war aanan jirin ama loo faafiyo inaanu adduunka aanu online markii ay noqoto war in la kala qaadona waxay u baahan tahay xaqiijin sanadkan marka hadda la joogo oo qof walba uu yahay wariyaha iskiis ah iyo idaacadda iskiis ah qofku waxa uu sameeyay ee farihiisa uu ku qorayo ee maskaxdiisa ka soo fulaya waxa uu sameeyay ee carabkiisa ka soo baxaya maskaxdiisu ay isku dubaridayso ee waxa uu sameeyay ee waxa weeye isheeg uu ka leeyahay forum ama gole uu ka dhex leeyahay oo abuuri karaya in lagu halaagsamo ama in lagu badbaado wuxuu gaari doonaa hadba ajirka iyo jurmiga masaaxada saameyntu ay gaadho qofka marka maanta nool ee saameynta caynkaas leh waxa saaran xil aad iyo aad u weyn ayaa saaran waliba markaan ku jirna marxaladan saxdi iyo qaladka isdhex yaaceen oo ilaa iyo diintii inta loo soo dhigtay diintii laga been sheegay oo dadkii la damcay in lagu dhibaateeyo diintii raxmadda ahayd oo naxariista ahayd oo maxaa ku dhahaa samaaxada ahayd waxa loo baahan yahay dagaalka aynu galayna ee ku aadan soo dhicinta arrimahaas inay ka bilaabato runta allana wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu faasiq hadduu idinla yimaado warka ha la boodina ee markiiba hubsada si aydan qolo si kada aydan uga duldhicin baa rabbul ciza uu leeyahay subxaanahu wa tacaala beenta waxaa ka ganacsada marka dadkaan alla rumaysnayn dadkaas aan isleeyahay alla ma rumaysna hadday jirto cid tilmaantaa qaadan karta si kulli ah waa nimanka dadka qalahayo oo magaca diinta ku baabi'inayo oo ku burburinayo marka qofka u shaqaynaya bulshada doonaya inuu waxtar u soo kordhiyo oo wacyiga ummadda kobciyo oo da'yartu ay ereyadiisa qaataan oo ilaahay kuma samadiiday maxaan ku dhahaayay hadallo murti ah oo isku aadan oo geli kara dhaxal oo in lagu soo celceliyo mudan ay ka soo bixi karaan ma aha inuu dhaqanka ka qaato sida nimanka balada ee khawaarijta ah oo waxba aanan cafiyeynin si ay u gaaraan dan guracan alla maca ugu been abuuranahay inuu cagsigooda booska u istaagaa loo baahan yahay marka runta aynu difaacanno dardaaranka ilaahayna aynu qaadanno yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin kuwa iimaanka lahaayow alla ka cabsada waxaadna noqotaan la jirka runlowyaasha ilahay kuwa hanugu daro aad baad mahadsantihiin ra-iisul wasaare soo dhowow waa mahadsan tahay waxaa nagu soo biiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi